sidee akhriskaaga ku aadan istaraatiijiyadda dhinaca Soomaaliya waad la socotaa xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ka iyo Axmed Madoobe oo Jubbaland madaxweyne ka waxa u dhaxeeya khilaaf aad u ba'an oo daran oo si adkaanaya marka ka dambaysa akhriskaaga ku aadan intii aad indheynaysay hawshaas muxuu yahay dadku waxay ka hadlayaan waxa gardaran xasan may waxa gardaran Axmed mar oo laga soo wareegtay balaha 2 sano oo la qoraystay ninka dhada Faad Yaasiin wuxuu yiri Axmed Madoobe wuxuu la dagaalamay Abdullahi Yusuf wuxuu la dagaalamay ilaa laga soo gaaray Shariifka Xasan Sheekh Maxamuud markiisii farmaajo imkana Xasan uu la dagaalami doonaa buuri aniga macnaha aniga hadalka ka faa'iideysanay wax weyn wuxuu ka waday marka uu Abdullahi Yusuf la dagaalamayay ma uusan ahayn Abdullahi markaas Jubbaland ma jirin oo Axmed Madoobe markaas madaxweyne ma uusan ahayn laakiin asoo wadaad ah buu dowladda federaalka Soomaaliya wadaadnimo kula diriro ka waday intii dambe madaxweynayaal bay ahaayeen laakiin wuxuu yiri xasan markaan dambe hadda uu soo noqdayna wuu la diriri doonaa hadafka aan uga jeedo aniga wax weeyaan waa dagaalkani ka dhacay imika sida ay dadku eegayaan markaan si ka duwan u eegaano saddex shay baa dagaalkani uu wataa waxa loo yaqaan al-anaaniya siyaasiya aniga labaduba jiro waxa haysata aniga ah xasan sheekh wuxuu ka shaqeynayaa inuu bedelo dastuurkii ummadda oo isagu isleekisiyo oo tasho mid isaga mid laag xisbi laba xisbi iyo saddex xisbi inuu sameeyo doona oo isaga laag wuxuu rabaa wadan isagu uu yeesho oo ciyaalkiisii isagu iska yeeshaan sida Djibouti oo kale Axmed Madoobe wuxuu leeyahay Axmed Islaano wuxuu leeyahay walima la anigana maxaa soo sameeyeen waa garsama laakiin xasan wuxuu ku doodayaa danta Soomaalida saan ku jirta isaguna danta Jubbaland bas ku jirto leeyahay mushkil ma jirto taasi in danta la waafajiyo waxa arabtid shaatiga talanaysa marka labada waxa haysata anaaniya siyaasiya haysata taas loo fahmi kartay jira kala taala meesha jirada kale taala waa jirada Bashar al-Assad haysata waa al-amal istiraatiiji labadu way dhalaayeen istiraatiijiyaan waxay isku dirayaan meel in la isku dirro aan hayn dal duusan dal aan jirin bay isku dirayaan waxa loo baahnaa maanta wax weeyaan in loo fikiro sidaasi ka duwan oo ah in la isbariyo la soo jiito waxaan bariyahan akhriyaa markii la sameeyay dalka Mareykanka dadka loo yaqaan al-aabaa al-mu'assisuun waxay raaceen ilaa iyo 9 jid oo ay ku dhisaan dalka Mareykanka jidka ugu fiican wuxuu ahaa tanaazulat al-mustamira in la isku tanaazulo si loo gaaro dhismaha dalka Mareykanka oo loo gaaro waxa loo bixiyo united state الولايات المتحدة United States كنتم دولة دودوي وخلافة الإسلام كوكله ودولة عظمى سيلو سمعي وحال لقى فكرة إلا سمعي الدولة هديته دولة ما مشاع والله قرني كهر قفك وقت شغيل جورج واشنطن يا جيفرسون وحي أركيين وحمان تجرى مي أركين وحي ربان ولذلك waxaa isweydiiyaa markay yiraahdeen ciidanka laga ilaaliyo dawladda markay yiraahdeen xoolalayda dawladda laga ilaaliyo markay yiraahdeen lacagta in inuu dahabka uu xukumo waxa dhan wax badan ma laga tanaasulay laakiin waxay dhisayeen dawlad state bay dhisayeen marka xasan sheekh iyo Axmed Madoobe ayaga saasoo kale uma fikirayeen ama indhalay baba waxa moosan dawladda weyn xukumaan meesha markay soo baxayaan gaariga u raacayaan salaanta markay qaadanayaan aniga waan qoslayaa waxa leeyahay meesha waa cidlo wax ma yaalin lacag ma taalo dhaqaale ma yaalo moogtahay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya oo dhan sharikad yar meesha maarta suuqiina maxaa dhacdaa ku yaala Minnesota maxaa soo leedahay Carmel Mall baa ka lacag badan kullu waxaan sheegayaa Somaliland Puntland kullu isku daro miisaaniyadooda hada isku geysid iyo lacagta meesha lagu bedelayo lacagtaas ka badan
marka dal sidaasoo kaleeta ah haddana 80% dalka waxa lagu cunayo waa gargaar haddana 70% dalku gacanteena kuma jiro wuxuu ku jiraa gacanta dibadda maamulada kale gacanta ku haya marka maxaa jira marka alcamal istiraatiiji ma ila fataase gartay arrin saddexaad oo muhiim ah jira arrinta saddexaad ee muhiimka maxay waxaa jira waxa loo yaqaano intaba dabad dibadda xarbul wakaali ku jiraan wadaad bawandada la soo hadlaya xamar jooga marka uu sheekeynaya istiraatiijiyada waxaan ku yiri war dagaalkiinu waa dagaal imaaraad baa dabada inaga wada isagana Kenya dabada ka wada walidaalika Hamza uu tagay Kenya uu tagay uu tagay uu ka baxay Nairobi uu tagay markuu Nairobi ka baxay ya dhulka wuxuu tagay ay degan yihiin reerkoodu baadii buu tagay muxuu ka doonay wuxuu rabaa in la yiraahdo geedan ku hayso shiino tallaabada iminka la qaadayo goorma la qaadi lahaa ka hor intayna soo bixin qaraarka ah يا الله سوق بتاع أحمد مدوبي وحنا سمين كرين لما سمعيه أحمد مدوبي الله سوق بتوع هلا الدادجي يسوي ردي ساعة صاكر ما إذا ما هالله ديره مش هالهو قرا أو دول كي شباب كانوا يقولوا دجالي هلا سوق قرا إذا ما وهلا جي هالكن تخلص سوق يهاب بالعمو متكلها جرتها استراتيجية أنا أفكرناها أيام ده واحد نجي سنة يدت وحيكون معنا يعني إنه يهدي القبلية سووا معنا يعني وحيليهن بنتلاند لما اعترافه جبلاند يمكن لجيبنا خاطبنا ولا اعتراف وهي ما حي كان يتواصل ونلوجي ذا بكلين مرة ما كانت هني سياسية وحوينا أخي كريسيد ولا ده هي محاس قدر ده بنتلاند بس سنة ما حد من بدون ورعيني عقلية في تفكير استراتيجي يالو معنا وحكاوتا حسن شيخ وحال الربينو كسي فكروا مدام ما لا إسحيان meelo kale oo la hayba ama u dhow inuu isku sii hadana la sii dagaal istiraatiijiyad ma ahayn istiraatiijiyad ma kartay waxay badilaysaa ru'yaday badilaysaa markaas walidaalika imika aniga waxaan imika aan fikiraya marka hadii Soomaali meel ay ku kulmaysa uu dhaco inaan tago waxaan soo gudbinayaa waraaqad la yiraahdo fikirka habadilo si aan dawladdu dhisno fikirka imika aan hayno waa qaldan yahay Somaliland iyo Soomaaliya isku soo noqdaan Puntland iyo maxay ina la bedilaba oo qaab kale ma sheegay imka waa loo qoraa laakiin fikirkan bedileyna gartay saan u fikirayna bedileyna haddaan saan u fikirayna bedilo waxaan arkaynaa daaqad kale wax ka arkaynaa waan ku noqonay wuxuu dhacdaa Einstein kii filosofkii wuxuu dhacdaa ee mufakirka ah ee fiisiyaanka ah wuxuu dhacdaa haddaad dariiq martid oo natiijada gaari weydid oo khalad noqoto oo ku celisid oo waalan tahay imise goor bay Soomaali natiijadan ay ku jiro lagu socdo imise goor waxay madooba dagaalamayaan imise goor ba maartay xasan uu kursi ku soo noqonaya oo rabaa inuu weligiiba sii joogo imise goor bay naqbadan maartay elitkan siyaasiga ah ay hor joogayaan isbedeli lahayn imise goor baa waa in la fikiro dhado la budda in tafkiiri baad kale dhado waa in mashkul dhaqaaqan waa in si kale loo fikiro la budda min dali hadii saa loo fikir waa marka aniga saas oo arkay dagaalka imika gartay waxyaabaha hadda uu Xasan Sheekh Maxamuud sameynayo oo heshiisyadiisa dawladaha midalan dariska qaybo kamida sida Djibouti oo kale way isku fiican yihiin Kenya isaga isku xuma Ethiopia way isku xun yihiin waxyaabo badan oo waxaad moodaa dadaal u eg inuu wado haddana uu rabo Jubbaland sidoo sheegay inuu shaqo ka qabtaba oo ciidamo keenay Raas Kamboni oo uu la dagaalsan yahay wax badan dadaaladaas uu ku jiro intii horena wuxuu ku mashquulsanaa midalan lacagaha iyo dhinaca dhaqaalaha iyo waxyaabo noocaas ah inuu meel dhigto keensado tii waraysi hore aan iswaraysanay aan u sheegnay aan ka sheegnay inuu u fakarayo midalan sidii in uu shirkad uu leeyahay kala u dhaqmayo marka ma moodaa hadda inuu diyaar garoobay lacag haysto hub u imaadeen doorashada soo socotana uusan u socon oo 2026 doorasho wax loo aanay dhicin ma u malaynaysaa istiraatiijiyad warsa doorasho la'aan suurtagal ma Soomaaliya way dhici doontaa sanad ku darsan karaa ay 2 sano laakiin way dhici doontaa doorasho isagu wuxuu rabaa doorasho uu bixiyay qof yoodkii خلاص
way ka go-an tahay isaga guddigiina uu sameeyey wuxuuna leeyahay walow xamarna ha ka dhacdee meel ka dhacdo taasna wixii lagu noqon lahaa laakiin haddii xamar keli intuu ku qabto mid asaga uu tashada uu sheegaysid uu tashay oo isleekaysiiyey sida ugu soo bixi lahaa oo uu yidhaahdo anaa dib la ii soo doortay haddana 2026 what do you think how is it going to be waxaan ka hadlaynay ka dhacday suuriya ku socotaa dhacaysa waxaan ku laamaynaa 91 الفوضى السياسية حروب قبلية أهلية ومصيبة مداس ومصيبة تأصل والله بلا شك وين مصيبة نيالا يا مجرون صومالي وحي قاعد مال أنا اللي إسحادي كرين اللي إسنا حكومي كرين إلا تشهد مو يعني وحكا اللي كرين وبراركتي ما بسيل معها وضعي أبو رصاص ولا سوتشيست ضدكم ما كلعتكم قبائل بالي قبيلكم عندكم قبيلكم حوينه dowlada la samaystay qabeel ku salaysan laakiin de hubka iyo soo degay iyo lacagta badan oo arursaday wax ma tari doono maxamed tareeso hubka qofka qaaday waayo qof Soomaali weeyaan hubka maxamed siyaad barahay hubka badan ma la heli doono maxamed siyaad barnaamij ugu badan basgeeska Afrika waa markii ay dadku baabuuradu ay yimaadeen meeshii uu ku qaxootiyoobay maxamed siyaad barahay midal basar bay gaarida yaaleen gaariyadii dagaalka kuwiin maartilaan cruiseradii war waxaan oo dhan yaa la bukeeyay dadkii la socday waxay nibade wada maxay iska cili wadeen murjabada haday waxaan isateen qofka dagaalamay hubku ma dagaalamo qofka ayaa dagaalamay hubku ma dagaalamo qofku inuu fikir ku dagaalamo iyo ru'yad iyo vision iyo Soomaalinimo waa in la abuuro marka ani waxay la tahay mabda ma jira dhaqaajinaya gartay dhinaca kale markaan fiirino doorasho ka dhacday Somaliland waxa soo baxay madaxweyne Ciro sida aad la socoto sheekhana Ismaaciil Cumar Geele oo Djibouti madaxweyne ka ah markii uu ahaa Muuse madaxweynaha memorandum of understanding MOU la sameeyay waxyaabo badan baa ka cakirnaa hadda laakiin isbedelka noocaana waxaa ka muuqdo inuu xoog ku faraxsan yahay isbedelka asaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud labaduba marka asaga markaan fiirino istaraatiijiyan akhriskaaga markaad eegto aynkee ayay مثلا doorashadaasi isbedelkan saameyn ugu yeelanaysaa Ismaaciil horta dagaalka Ismaaciil iyo dhaxmaray Muuse bixi wuxuu ahaa dagaal isagana laba waxaan si karnaa macno si istaraatiiji ah dagaalka wuxuu ahaa dagaalka markuu madaxweyne Geele uu dagaalka galiyay aqligiisa waxa ku jiray wuxuu yiri dhabarku iga toogtay wad gartama arinta cilaaqada ay lahaayeen Muuse iyo Ismaaciil Cumar cilaaqa shakhsiye way waa cilaaqa shakhsiya waa kuwii dumar isa siinayay habli bixinayeen aroos bay joogeen xasan buu la joogay la soo dhaw cilaaqadku waa shakhsi cilaaqatu dawla maaha dawladuhu kuma fikiraan caatifo maxay ku fikiraan aqli baasha qoro الدول لا تفكر من قلبها وإنما تفكر من مخها marka uu qofku dawladii yahay agu ka fikira aqliga markuu ka fikirana maxaa yimaada maslaxad baa imaanta interest baa badan caadifada xaq iska dhigaa marka caadifada xaq iska dhigaa Geele wuxuu Muuse cilaaqada dhextaale waxay cilaaqa caatifiya number 1 number 2 cilaaqada Muuse iyo Geele dhextaale maxay cilaaqa caa'iliya قال سيدي يرير وحنا كلا حكومة دول كلا مصالحها وكلا أفكارها وكلا دنا وحي مركا أو هايستان إن السيدة قوة صعون كريان إلى الأبد يعني دنا هذا كلا دوينهم بإلو سنين ولذلك مركو هالشيس كالجلي موسى حسن وإسماعيل اسكو كاني وحال بلانسنا بلا كدب لكن صاحب ضباب وحو تغي إثيوبيا. It was next day. ما عندك correct. إسلام مركي ما وحى هذا وزير كريمة هديبة جيبوتي وزير كمالية واحد هذين دبر كون نجا توكتي. صور دبر كذا توكتي. موسى وحكي شقاني يدن تيسا يدن الدولة تيسا يدن استراتيجية تيسا. أظن حكي شقان يدن هذا يدولة ده استراتيجية هذا. سوينا أوفانتين مركا وحال هذا جرا استراتيجية مركا الله فكره يو سمي ذا وحلو أركام. أما والله سوى فقط معلوم كلا تجا لكن سمك الله فكرة يا قلبي لا فكرة وصعب على أنت سوى كوي
arrin labaad baa jirta waxaa jirta lacagaha dhex maray iyo xoolo iyo guryo iyo alaab iyo baanan iyo waxbaa dhex maray waxaa dhex maray marka ay muuse kursigiisa noqotay iyo mustaqbalkiisa wuxuu u arkay in uunan muuse waxaa lacagta Jabuuti u taallaya inuu iska ilaawo marka isagu wuxuu laakiin waa soo xirayso gacantaad ku haysaa xoolihiisa oo dhanba Ismaaciil wuxuu islahaa kaamo maarmi karo maadaama bangiyadaada ay lacagtiisii badankeeda ay taalo laakiin muxuu sameeyey markii doorashadu ay imatay 80% buu dhinaca kala tagay Cabdiraxmaan baa loo soo diray lacagtii isaga loo soo diri jiray markuu doorashada gali jiray muuse la siin jiray raggii xoolaha lahaa ee weliba reerka muuse ahaa ya ee dowladda Jabuutina la shaqaynayay ee sharikada ka qaata maarta Djibouti Telecom iyo ka qaata cashuuraha ka qaata baad qadarasada waaweyn waxa la shaqeeyay Muuse Cabdiraxmaan soo gartay marka maxaa isbedelay boosaladii baa isbedeshay imikana waxa wali hada imika waxa dhacday waxa la aasayay ilaa naxariistay Siilayo dowladda Djibouti meena iman kama soo qabil aska imika waxaa la samayn doonaa calasaarkii madaxweyne Cabdiraxmaan Djiboutina waa lagu qabanayaa xafladii waana wafdi weyn oo madaxan uga imanayaan marka Djiboutina ka dhacay Soomaaliland ka dhacay marka adiga Siilayo muhiim buu ahaa inuu aaskiisa joogtid maadaama cilaaqa la leedahay wadankan ama dadkan soo waxaan garatay ma hatta doorashada lagama sheekeynin Djibouti laakiin markii natiijadu dhalatay oo tiro weyn uu ku helay waa laga sheekay Soomaaliya marka istiraatiijiyadu waxa weeyaan meesha ka qaldan tahay waa aniga hore u sheegnay waa in xiriirkii la soo cesho laana xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti ma kala maarmay wada walaala weeyaan inay ku xidhnaato maaha cawaatifta waa inay ku xidhnaato danaha dadka iyo waa in dawladdu maskaxda ka fikiraan imikana saasa saxa inuu Cabdiraxmaan noqon waraaqad la isticmaalo sidii Muuse Biixi Cabdiraxmaan markii wax laga weydiiyay memorandum of understanding iyo sida uu sameyn doono MOU-ga wuxuu yiri waxa uu ku qotomo iyo sida uu yahay iyo faahfaahin dhameystiran kama hayo madaxweyne ma ahayn markii la saxay waxba kama ogi hadda laakiin marka uu galo xafiiska oo uu eego oo danta Djibouti oo hadda dabaaldeg ku jirto eego danta reer Somaliland dantooda uu eego Ethiopia iyo istiraatiijiyadda darisknimada iyo danahooda uu eego ma la qiyaasi karaa waxa uu sameyn doono ama maxay noqon doontaa danahaas iswada hardinay horta dowladda Somaliland ama Somaliland maartay dad baan ugu dowladda Somaliland marka la dhacdo saddex shay baa muhiim ah waxa muhiim ah dadka loo yaqaano reerka dhexe soo fikirayaan ninka madaxweyne ka noqonaya Somaliland reerka dhexe soo fikirayaan kama bixi karayo dawayna qorotid dantoodu fulinaya iyo fikirkooga labo say laakiin u fikirayaan waxa u fikirayaan Somaliland waa inaa la ictiraafo oo ay dawlad go'do noqoto waa dariiq ku jirayo ko meel kastoo ka iman karta ictiraaf waa inaan barno haween oo muhiimka ah waxa weeyaan Ethiopia faragelinta ay ku leedahay dhulkeena gaar ahaan Somaliland faragelin normal ma aha taasina indhaha la iskama tiri karo gartay arrinta saddexaad Ismaaciil Umar Geele xiriirka uu la leeyahay dadka Somaliland isagana way culus tahay saddexda marka isku dardarno waxa ka dhalan doonta talaabada uu qaadi doono Cabdiraxmaan waxaana garataa saddex shay baa jirta hor intaad madax noqon markaad madax noqotid iyo markaad ka baxdid yes mid waliba xataa madaxda gaalada maartay intayna madax noqon afkaar bay qabaan si kursiga u gaari lahaayeen markay kursiga gaadhaan siba u shaqeeyaan markay ka tagaana runta sheegaan bajiro nin mituu madax ka noqday Mareykan ama Yurub oo markii 20 sano ka maqnaa kitaab qoray oo Israa'iil cambaareen ma jiro markuu joogay inuu la shaqeeyay ama uu shaqeeyay markuu ku socday inuu raali gelin jiray si loo doorto marka waa sidaa Cabdiraxmaan kii kursiga doonayay markuu kursiga gaadho Cabdiraxmaan kii maaha
markii cabdiraxmaankii shalay doorashada ku jiray ee khamiiskii koofiyadda qabay dadaalayay ee dadka u dhawaay xataa culummada la shiraayay wadaadada la shiraayay gurubyada la shiraayay ee waxyaabo badan akhrinayay marka uu ku fariistay kursiga oo arrimo badan oo sir ah oo hadda qaarkood aysan kulli u wada caddayn uu arko oo uu fiiriyo oo madaxa xoqdo dad waaweyn oo la talinayo saan uu arko macnaha uu isbedeli doonaa waxaa jira waxa dhacdo daruuraat dawla wax dawladnimadu kugu qasbaysaa jira adoo raalli kahayn oo danaha dawladda ood qabanaysid marka maadaa takuun daruuraat dawla yaan eegi doonaa laakiin ninka siyaasiga ee mabda' leh wuxuu isku eegaa iswaafajinta daruuraat dawla iyo mabaadi'uhu inuu iswaafajiyo mabaadi'diisa ma la iswaafajin karaa mar kasta inta badan ragga khatarka waa iswaafajiyaan weli hadda Erdogan inta badan kama tanaasulo mabaadi'diisa laakiin wuu ciyaaraa muruuna badan buu sameeyaa ciyaar badan بينما نيكي سعد الدين العثماني الأورني يحكم جري مراك وكتنا زلوب دي سي بقول كي بس أيام دويت نيك أول إبراهيم للعظم ماليزيا أدبو تنازلي وأدقتها لكن تنازلك أنت بدن ضد قيمة نجوجا عيار كتر مارك عيار مارك وحلا جرت شينا يا إنه عريه سيلو برتين نقضة حدا يوصل قشة waxyaabaha uu ka tanaazulayana waa khasab inuu wax ka tanaasuli doonee oo ciyaar ku daro anita muhiimka waxa weeyaan inuu noqon lucbad Ismaaciil Cumar Geela gacanta ku hayo waraaqadu isticmaalayo hadi muhiim jiddan inuu iska ilaasho Ethiopia inuu ugu dhicin weelka oo in uu noqon dabka karsamaya miiska soo dhigto inuu furan heshiiska iyo sheekadii dhexmaraysay Soomaaliya uu dib u furo inuu dib u furo muhiim jiddan way xaas okay gartay sheekhana dhinacaas markaan ka soo gudubno waxaan u soo dhownahay gunaanadkii iyo gabagabadii barnaamijka khilaafka Soomaalida iyo Oromada ee ku aadan magaalada Diridhabo ayada laftirkeeda istiraatiijiyad akhris bay u baahan tahay dad badan oo Soomaali ah maalmahan waxay haystay social media iyo Twitterka iyo meelo badan arintaas aad baa ay loo hadalhayaa استراتيجية آخر سكاجا كوادن مجال Diridhabo خلاف كأورمada iyo Soomaalida maxaa dhihilayd horta Diridhabo waxay leedahay saddex arrimood waaweyn number 1 waa caasimada labaad Ethiopia gartay magaalo ahaan waxay ku xigtaa Addis Ababa labo waa madiina tijaariya waa magaalo baayac mushtar muddadii la dhisay waxaan loo yaqaano maaragtay xadiidka intii la dhisay tareenka la dhisay وجيبوتي أديس أبابا لدسي برتمها كتالي وحي جيبوتي كيما دا هكذا يمني وحي توبي كسقون حقه يمني سوق بين نقطة مركا مهم جدا كرتي أريد أصدح ماشي أي كتالنا وجو استراتيجي مهمة مركا لقى صورة على عبورتي هرر أو توبي دي وينيد لو صعده أم بدوكي عن فرت السنة لو صعده يصومالي دا بدي لو صعده بماشي أي كتالنا مجالنا يضع مجال سوي استراتيجية magaaladaasi marka sidaas siraac baa ka jira iyaale cidii lahayd baan isku haystaa gartay siraacaas markii hore ma jirin magaalada aslan ahaan waxay abuurantay markii dhabada xadiidka la dhisay tareenka la dhisay bay abuurantay magaaladu laakiin deegaanka waxaa deganaan jiray dad laba reerood oo Soomaaliya deganaan jiray gurguraha iyo ciisaha deganaan jiray marka asaaskii magaalada hareerihiiga xataa kuwa afka Oromada ku hadla waa Soomaali weyn dadka afka Oromada ku hadla ee Diridhabo goodaasheeda degan buurihiiga degan ee ku meersani xataa Oromaa ku hadlaan usuushoodu waa Soomaali weyn marka waa Soomaali af ahaan iyo luqad ahaan iyo dhaqan ahaan Oromowdi weeyaan gartay maxaa yeelay Oromadu waa mujtamac weyn marka la tago way ku liqayaan waana beeraley waxay ka baxeen shaqada Soomaalida ah geel la joogi ari la joogi xoolo la joog iyagu waxay noqdeen degan bay noqdeen marka qofka u guura dhulka Oromada uu degayaa kolka degtidna waxa noqonaysa Oromo marka Oromadu aslan maaha cirqi maaha wax dhiiga Oromadu inta badan waa deegaan waa dad isu yimid waa xulufo okay taas ma ka aragno markii oo dawladdan cusub ay asaasantay ee dawladda Ethiopia ay soo gaadhay dhulkan Soomaalidu ay leedahay Diridhabo ay matay waxa weeyaan Menelik iyo Haile Selassie iyo ninkii loo oran jiray Mengistu waxa u yaqaaneen Diridhabo dhulka gurguraha iyo ciisaha
magacaabaa lahayd saasaa loo yaqaanay mandiqada gurguraha iyo ciisaha loo yaqaanay markuu malla zinaawi yimiday ee dowladdii tigreegu ay dhalatay waxaa dhashay waxa la dhahdo dhulkii in loo qaybiyo juqraafi ahaan oo la dhahdo gobolada soomaalida dhul bay leedahay maarata oromada dhul bay leedahay okay magaalada dirraba markaa diraasaa lagu sameeyey dhinacan buurta marka laga yimaado oromaa degan soomaali oromowda iyo oromo asalaba marka aad dirraba ka baxdid 10 mitir kadib markaad ka baxdid buurta kortid ood harar u socotid isla markaaba waxaad tagaysaa dad maaragtay oromo u tagaysaa laakiin markaad u baxdid dhinaca Djibouti aad baxa aad dhaca inta baad u baxdid waxa weeyaan waa wada Soomaali weeyaan waxa degan soo gartay ma gartay iyaala la isweydiiyay markaa dagaal baa markaa dhacay 9kii 4kii dagaal weyn baa socday caasimada Soomaalida ha laga dhigaa la dirlaba dad fara badan baa khaldamay dadkii jabhadaha waxay dhaamay caasimada ma noqonayso dirlaba hadday ku dagaalami lahaayeen caasimadu waa inay dirlaba noqoto ormadu dib u guran lahaayeen maantana laguma qabsadeen laakiin gudayga la aaday jijiga la geeyey oo waxa yaala dirlaba uunan oolin laakiin dadka jabhadaha maxaa yeelay dowladda Itoobiya ee malas uu sameeyey strategical waxa loo kala qaybiyaa shucuubta markaska ee dowladda xukumaysay iyo shucuubta hawaamishka ee la xukumayay markaas markaa ay hayaan waa Tigray Amxaar Oromo iyaga markaa miiska fadhiya lagu qaybinayo inta lagu cunayo shucuubta kale waxay dadka miiska dul fadhiya la cunayo markaa Soomaalida meesha lagu soo tashanay may fadhin Abdulmajid baa joogi jiray Abdulmajid ma fadhiisan laano uu maadaama uu ku jirin afarta qolo ee ka talinaysa shucuubta koonfurta oo taasi waa mid dawada okay markaa waxa la magaaladani dagaal baa ka dhacay waxa weeyaan waa magaalo federaal sidii Addis Ababa oo kale imika Addis Ababa federaal maaha waxa la waa dhul Oromo leedahay laakiin waa caasimadii sida Ottawa kale Ottawa gobolka bay ka mid tahay Ontario la dhahdo laakiin waa caasimadii dowladda Canada laakiin gobol ahaan ay ku tirsan Ontario Addis Ababa maxay ka tirsan tahay gobolada laakiin waa caasimadii Itoobiya dirrabana markii dambe waa la soo baxay waxa la maya waxa isla leh Oromo iyo Soomaali meelo socda markaa gartay Oromada iyo Soomaalida baa isla leh markii la yiri waxa la yiri 4 sano ee doorasho dhacdo labada nin ugu sareysa waa inay noqdaan Soomaali iyo Oromo labadan nin buu midna 2 sano xukumi midna 2 sano xukumi 2 sano waxa xakumay Oromada 2 sano waxa xakumaya Soomaaliga halkan bay ku jirtaa dhibaatada markaas waxay ku jirtaa waa la wada noolaan karaa waa la wada yeelan karaa waa la wada cuni karaa dad kale oo Soomaali ahayna way degan yihiin magaalo caasimad bay noqotay laakiin problem halkan buu ku jiraa problemku wuxuu ku jiraa dad hadlaya oo istiraatiijiyad lahayn iyo dad hadlayn oo istiraatiijiyad la isku helay meesha كعلي واحد ترى ضد هذا يا استراتيجية لهين ما نعمسيان يضد أمسن استراتيجية نله أو كلا Soomaali دي أرمض Soomaali هذا يا هذا يكجران شو يردك سوقرين با حتى وحي ربان وفشلين وحنا من قبل يا أرمض ما حيسمينا يا أنا لما فكر ضد بقى فكرة عجيبة بريبان وأنا حاجة بيحجر وتجر ماشي وحاركي دمر بدن أورماء أو دميرة وطا سؤال هو يدي هاد دميرة هناك كيماتين دميرة واحد سوق على المجال الصبحي هبي كانوا يبحان واحد كان عن حابضة سبقة عانها أي كان هبي كانوا يبحان حاليا وكن دمير شركات جات كأودو في الصومالية جيبوتيو يا إي بي سي waxaa loo iibiyay istiraatiijiyad dadkaasi inay soo degaan hareeriyaha dirdhabe dawaaxi dirdhabe Oromo laga helo caanaha iyo keena subaxi waxaad arkaysaa xaraka غير caadiya okay waxaan haddana arkay guri aan kireysan jiray oo ilaa iyo dhowr boqol oo guriya oo si magaalo loo dhisay ayaa dhisay waxaa dhisay shirkadda jaadka u geysa Djibouti iyo Soomaaliya shirkadda yaale Ormale
shirkada maxay dhisay markaa guryo maxay u dhisay inay dadka ormadu soo degaan magaalada marka iyagu waxay ku shaqaynayaan istiraatiijiyad la yidhaahdo istiraatiijiyatu tacmiir aamusanna استراتيجية إسرائيل أكو قبضة فلسطين. أنا كنا واحد كوش غيرها سوارو استراتيجية الصيحة. قيلون. هبل بالحدة ولا سوسيدا هبل بالحدة خلاص انتهى الأمر. مركا الرؤية الاستراتيجية وحي كبد الناس نقف كان رؤية لهين. العمل الاستراتيجي نوع كبد الناس نقف كان عمل استراتيجي لهين. ذاتك التخطيط كب بلانيك استراتيجي قال وحي كبد الناس ذاتك كان بلانيك استراتيجي لهين. كل ذلك وحو كاسنايا inaan fashal Soomaalidu ay ku tahay diradhabe